بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حسن إذا شئت سهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي تقرح ضبضا شرف ضبضا سيدين لي هاي من لوناكسين هاي الحمد لله أنا قوافي عن هاي دمانتين الله هنا وداما سدو ميلكستان جوغنو آمين يا الله. إن شاء الله waxaan rabaa inaan la wadaago alaab yar oo khatara waxaan ka wada cajiib ah oo ah farsamada gacanta ee wadankeeni qofka farsamada gacanta ka shaqeeya ceeb bay ahayd laakiin qofba qofku ka caqli badan yahay ka maskax badan yahay ka yacni han weyn yahay ayuu wax soo saaraa marka ay wishinaan dadkeena Soomaaliya joogay farsamada gacanta ku shaqeyn jiray sidoodii kale na u shaqeyn karo waase isku dayay insha Allah hadii la yiraahdo marka insha Allah farsamada gacanta marka waxa uga jeedaa waxaan rabaa inaan la wadaago hadii la haydamo qofka haysta shoolada noocan oo kala haday ka xumaato wixii uu sameyn lahaa intaanan u gudbin wuxuu sameyn lahaa hadda ka hor channel hore aan lahaa ayaan mar hore yacni wuxuu adiga 2 sano 3 sano ka hor meelahaas oo maaragtay markaas aan intaan aniga yacni xoogaa intaan yareed daalay caajis waxa dareemay baan iska xiray hadda laakiin ma xiro markaan caajiso waa iskaga tagaa markaan ayaamo waqti halna ku soo noqdaa marka yacni clip yar baan sameeyay anoo shoolada saan u sameynayaa ilaahay wuxuu marxaatiga iyo gabar walaashay bay soo wacday waxay igu tiri kaltoonay 9 sanadood oo gaw ah ayaan waxaan la dhibaataysnaa shooladayda leegamana bedelo bay tiri anigana ma rabeen aan bedelo markastana waxay tiri dhibaatada 9 sano ay igu haysaa waxay tahay waxay sameynaysaa bay tiri marka gabadha guri dawladeed bay deganay dawladuna iskama bedelayso wixii cusub laakiin mar walba way imanayaan way sameynayaan way noqonayaan way sameynayaan marka waxay tiri 9 sano dabka gaabanaya waa la imanaya bay waa la sameynaya dabka gaabanaya soo anigana dhibkay haysta wuxuu ahaa waa la sameeyaa dabka gaabta anigana dabkana aniga iska gaabiyo mooyaane aad baan u nacebahay dabka daciifka ah oo inuu dabku daciifiga ahaado aad baan u nacebahay marka maalin maamaha kamid ah markii ninka yacni farsamayaqaanku igu daalay oo haduu doono 2 week mar yimaado oo waa la sameeyaa barteedii way ku noqotaa ayaa waxa iga raali hada ayaa waxaan sameeyay waxaan isrimaantida bal wuxuu sameeyay eeg ilaahay qudradiisa wuxuu sameeyay wuu fufray wax yarar wuu gargaraacay waxba sameeyay adiga markii dambe uu isku rakibay oo bahalkan cadaanka ku dib ugu celiyo fiilooyinka waxa soo yaagay ayuu wuxuu sameeyay irbada dharkan ku tolano kala soo saaray jeebkiisa kala soo baxay deemesh qalabku wax ku sitay bahalku qalabku ku sitay shandadii kala soo baxay irbada yareed buu saas ugu xurbiyay saas ugu walaaqay maalinta wixii ka dambeeyay wallahi inaana qof farsamo yaqaan oo wacanin yacni dabdan baa iga gaabsamay uma wacdo marka hadda waxaan sameynayaa marka hore waan intusiyay waan rajeynaya hadda intaan hadlay yara dhaaftay waxaan sameeyay markii ugu horeysay waa dabku wuu gaabnaa kabacdi irbad aad iga raaleedada qayla maqashan ciyaalka murmaya marka waxaan sameeyay awlaad Allah inoo dhaafo dhamaanteynba marka waxaan sameeyay bahalka waxaan sameeyay markii hore dabka waan shiday dabkii oo gaaban hadana waan tusi doonaa dabka sumarka dama dheerada marka irbada ama biinka xijaabka lagu xidho ama khamaarka lagu xidho ama wax yar oo dhuuban aniga hadda biinkan khamaarka ku xidho ayaan soo qaatay biinka marka meesha yarde biinka qof kasta waa fahmaya irbada yar ah baan gelinaya waan ku walaaqaya xataa mararka qaar waxaan isku dayay sida qashin wax ka soo fagayo kale baan ka dhigayaa inta markaan sameeyo waad arki doontaan dabka maasha Allah waxa uu dhahayaa marka aniga dabka inaan anigu iska gaagaabiyo oo anigu iska kantaroolo waan jecelahay laakiin inta in leeg inuu dabku iga gaabto ma jeceli marka waa farsamo insha Allah farsamada ay qofka shooladan oo kale leh oo fiidiyowgii hore bariga hore aan sheegayo sida walaashayda ka faa'iideysato kale aysan ahayn sida uga faa'iideyso qofka shooladaydan oo kale le baan ka hadlayaa waadna ka faa'iidi doontaa insha Allah maskaxdeenu waxa weeyaan waa sida lindanaanta hadaadan tuujin waxba ma kaaga soo dhacayaan
buugga haddaadan akhrinin isagu isma akhrinayo maskaxdee haddaadan malabka caaga malabka ku jiro haddaadan tuujin kaa kuma soo dhacay marka maskaxdeeduna waa saasoo kale waxyaalo badan baa ku kaydsan keliya waxay rabtaa qofkii tuujin lahaa oo kasoo saari lahaa inay wax ku eegi karto kula soo bixi karto ku baari karto inay wax ku qaban karto marka alaabtan yar inaad ka heshaan baan rajeynaya insha allah waxyaalo kalkaloo farsamada gacantana insha allah waa kusoo dadaali insha allah haddii ilaha yiraahdo waxaan soo isku dayayaa inaan waxyaalo badbadan oo farsamada gacanta ah ood gurigaaga dhexdiisa ka samaysan kartid oo dee qaybta dhaqaalahana soo hoosgelaysa haddii ilaha yiraahdo insha allah inaan soo badbadiyo kan hadda waxaan kusii xijinayaa markaan dhameeyey sida shoolada dabka loo dheeraysto adigu gacantaada ugu dheeraysanaysid waxaan kusii xijinayaa isagana tan yar ah alaabtan yar iyadana ah waxaan samayn jiray awal hore waan soo gadan jiray caagaga maaragtay bahalaha yaryar shaandhada hoosta ka ee marka weelkaad xashid buraashada iyo waxaasaad ku guratid marka ayaan dhowta kiiba iga dilaacay markaas waxaan isiri hadda online unbaad wax ka gadan kartaa markaas waxaan isiri inta online ka gadan lahayd balakijada ku noqo marka waxaa ii yaala caagaas oo maxay tahay fruit ka dhamaaday baa waxay tahay digiraha maaragtay oo ka dhamaaday ayaa ii yaalay markaas waxaan sameeyey waxaan isiri marka farsamo keen waxaan sameynayaa marka dee nacasnimadayda waxaan soo qaatay bahalkan oo maaragtay mashiinka wax lagu furfuro ama kabadhada iyo markaad alaab xirxiranaysid oo wuxuu isagu derbiga masaabiirta alwaaxyada iyo baa loogu talagalay waxaan iska soo qaatay waxaan isiri caaga dabada kaga daldalooli waa iska soo jaaj garaystay waxaan isiri caaga dabada uga daldalooli marka waxaa dhacda kiliibka markii hore kamarada shitay markaan arkay inuusan shaqeynay waxaan isiri maxaabad u dhiliidaysaa farsamo xumadaada dadka la wadaag si uun qof kale ugu fakirin oo soo odhanin geedkan bahalkan caag buu kuu daloolin karaa usan isoo odhanin la sheergaree baan isiri marka farsamo xumaday ka mid tahay wax walbana maalin baa la bartaa awal hore waxaa moodi jiray mashiinkaasi wax kastoo lasoo qaado in dalaq lagu siin karo lagu daloolin karo marka hadda waa ogaaday waa kaasaa wuuba iska cararaya wuu iska kor ordayaa maba ii shaqaynayaba maba ii gelayaba marka gadaal baad ka arki doontaan sidaan u daldalooshada insha allah waa si yaroo aada u fudud macnaheedu waxay tahay wax kasta gurigaaga dhexdiisa ku dadaal caagaga haddaad doontid caaga caanaha markuu dhammaado waxbaad ka samaysan kartaa hadda geedkaasoo kale mashiinkaasoo kale waxaan kasoo galtay aldi baan ka gatay aldi aada ugu dadaala aldi alaabtiisa dadka aniga hadda malboon oo kale waxaan arkay gabdho walaalahaya way ka khashaafaan aldigana wax ka gataan xaqiiqatan aldiga aada buu quality fiican yahay dhowrkii sano ugu dambeysana isagaa ku wata xagga maaragtay groceryga isagaa ku wata iyo xitaa alaabooyin badan oo kale isagaa ku wata xitaa tartanka dukaamada ay galeen isaga ayaa wanka u galay safewaygi wuli safewayga magacii lagu bedelay hadda wuli la dhaho iyo maxay tahay koolaska isagaa wanka u galay inay ahayd 2019 baan noo malaynaya sidaa daraadeed aldigu isagaa ku wata wax kasta aldiga kaadaloogiisa soo qaata markaad aldi kaadaloogiisa soo qaadatid waxaad ka helaysaa wax kastay keenayaan wax kastoo soo socda markaas insha allah la socda marka qaarka wax seel ka jiro alaabadiisana 100% waa la hubaa waa qualitygeeda waa la hubaa 100% waana ka jabantahay dukaamada kale marka insha allah marka aldi baan kasoo gatay aldi saago soo gata bahalkii markaa ii shaqeyn waa waxaan samaystay midi iska caadi aan cilaanka markaa marsanay iskaga dijiyaan dabka gashtay waa ku daldaloshanaya daldaloolka waxaan uga jeedaa markaan hadhowto alaabada ku guro buraashada iyo ku guro inay biyihii iga sii dayso oona biyihii kaydin kabacdi waa iskaga qalajsanayaa buraashadeedaasaan iskaga guranayaa baxasha maartay waxay tahay siinka tuubadiisa taabkaan suranaya markuu ii qalalana kabarka hoos baan iska gashanaya gabar saaxiibta waxay igu tirintay aragtay wallahi waxaan ka baqayaa faqriga baa daaqada lagaa tusay war faqri maaha aamusa baan dhahay waa dhaqaalaha la kaydinayaa marka insha allah saas inaa ka heshaan baan rajeynayaa intaa yarna waxaan soo wadaa isagana sida haddii barafiyumka kaa jabo liidhkiisoo kale ama catar ama remote controlka wixii kaa jabo oo qori ah iyo dhalooyinka sida loo samaysto xataa channelka hore aan leeyahay waan tirtiray waan geliyay kaa laftirkiisa haddana
insha Allah mar kale aan soo celinaya maadaama channelkaas iska tagay marka insha Allah farsamooyinka yaryar ee gurigaaga dhexdiisa adigan cidna ku raali gelinaynin cidna dhahaynaan meela yaabtaa adigoo naftaada ku qanacsan gurigaaga dhexdiisa farsamooyinka ka samayso caagagaas oo kale iskama tuuro hadaad xitaa dhir beeranayso dhirta lagu beertaa hadaad wax fiican yara kala rabtid waa ku guran kartaa alaabtaada marleyba horta weelka daloola weelka godan bay dhahadi jirtay ayeeday weelka godan lama tuuro hadda wakaas alaabadayda waan ku xareystay jag maasha Allah gabar saaxiibtay waxay igu tirnaa walaalay taabkan iska bedelo mid dheer ka dhigo oo maxaan uga dhigayaa hadiiba biyo iga soo baxayaan oo ii shaqeynayo maxaa kibirkaa geliyay iyo dhibkaas marka sidaasaan ku isticmaalayaa maasha Allah dhammaantiin inaad ka heli doontaan baan rajeynayaa farsamadaas walaashiin ama maamadiina aad iyo aad ayaan u wada mahadsantihiin khayr badan idinka dhammaan Allah idin siiyo dhammaantiin waxaan idin leeyahay farxad caafimaad bash barwaaqo ku waara kuna soo dhawaada insha Allah channelkayga aad baan idin soo wada dhaweynayaa